السلام عليكم ولا خالي وايد والسلام مركز دوك جوجتا waxaan rajeynayaa caafimaad qabtaan walaalaha cusub waxaan idin leeyahay gacan furan kusoo dhawaada saaka iyo routiinkeena iyo subaxnimo alisee waaye insha Allah soo sida arkaysaa meesha waxaa waaye waxaan kusoo diyaarsaday baaquligan yogurtka bleenka yani ayaan isticmaal rabo waxaan kusoo darsaday ayu fruit ah haysato ama barafka kugu jiro ama yani ha ku ahaado mid fresh ah kusoo darsay insha Allah aniga barafka igu jireen aan ka soo baxsaday yogurtkan waxaa waaye mid plain oo waxba sokor iyo waxba lahayn kadibna waxaan kusoo darsaday moos ayaan kusoo jarjaranayaa jab halkaas kalena waxaan ku haystaa yogurtka oo originalka ilmaha loogu talagalay caruurta to baby yar inaan siistaa rabaa kadibna meeshaan ka dalka waxaan ku shidanaa biyaha waxaan rabaa inaan kusoo green tea inaan cabo oo aan biyo kulul ayaan ku darsanaa insha Allah soo fiicantaa subaxii alisee markaa kasoo kacdo green tea inaan ku bilaabato ku af bilaabato calooshaada wixii ku jirta shaah bilaa sokor sokorta wax fiican maaha waa cudur ilaaha naga haayo laakiin waqti dheer ayay qaadanaysaa maskaxdaada sokorta inay ka go'do laakiin dadaal badan ayay u baahan tahay sokor ha isbarin insha Allah gabar yahay gabdhiga qaaliga soo meeshaan waxaan soo daaqaa yogurtkii caruurtana sidoo kale yogurt waxa ay u soo dhidhiibay subax hore waxaan jeclaa yogurt iyo waxa in lagu quraacdo kadib intaas ayaan isku soo ogaanaa nafta loo raaxeeyo jawi macaan waxaa waqti hore taa la wada qaatay insha Allah yogurtkani kaaliska arag xogaa wuu yara adag yahay laakiin dhib ma laha fruitka ayaa xeedkii soo gabadha dirta markay soo iyadana yogurtka soo cunto waxaan rabaa hal xabo ukun in dabka u saaro oo ugu dhigo cunto ahaan waa yogurtka waxba ma taraayo insha Allah soo yogurtka wuxuu fiican yahay laakiin waxaa waaye afilaaw cunugu wuxuu u baahan yahay waxyaabo kale oo u baahan yahay soo laba xabo ukun ayaan soo saaray xabad aniga ayaan isticmaali doona insha Allah maadaama yogurt bis aan soo isticmaalno markii horeeto xabadii ukunta ahayd oo usoo jajaray canab yar ayaan usoo jajaray waxaan kale usoo jajaray moos yar ayaan halkaas usoo saaray soo cunuga intaas aasiiso ka badan quraac ahaan subaxii horan waxaa fiican caruurta in lagu bilaabo waxyaabaha jilicsan ama mashahrido kaleeto ama yogurtka kaleeto laakiin xilliga kaleeto يعني حلقة مركز ساعات أما لو ساعات كسو وريقتو ويكون عنايان سو سيد أركيسا ميشان ويلا رفادية أنا أمانو نحو عندها هو رفادي جرجر موسكيو الله مستعانكم مدرنا كنتو حيدون دول كالوك دادي ميشان صار أركتا لقدك الدنيا دا دمدوال راقي أنا هقاج السنة عندها هوي ما عندكم باشار انت عون كرتون انت دادي كرتون دادي الحمد لله أولادي إلهنا وبركاي انت أولاد حسنة إله سيو وحرا مركو ويلكي غير كاسين سدو كلاتي إنا أصمي قرائر أفوزد وكالس كارجي وحرا حنانا إنا انت نجيو سو حنانا انت جيني كور أيان ربع أصلا سوكل إنا وبوبسيو ماشي وحان سوقة تباقولي كدبني وحان سمينا موس جبكي موسك حبدي موسك هاي حلو قيونا دور حبو سو قبل إهرت الميلا أقصى صار عنيا واسو استعمال جبكي سجل أيان هذا الربع inaan wiilkayr qurac ugu sameeyo soo moosku waa fiican yahay haddii aad cunma ugu farsamayso haddii cunugaaga caadi cuni karna waa kaasa mooski waan soo burburiyay frigeeta ayaan qaatay jagta aan kasoo siiyey maasha Allah tabaarakallah soo cunuga inta aad siisato ka badan waxaan kaloo ku dari doonaa xabad ukun waxaan rabaa malaba yar oo kaal iska arag oo fudud inaan u sameeyo xabadii ukunta markii aan soo qaadan waxaan rabaa hadan ukuntii iyo mooska si fiican isku soo dhexgeliyo waxba يعني سكر iyo waxyaabahaas badan kaaga ma baahno hadii cunugaaga isla aan leeyahay min ku cunaa sokorta iyo waxa soo jecel aan ugu dari kartaa waxaan kaloo soo daray hal deciliter oo mishaarida ama qamadiga midka madow hadaa haysto isticmaal kartaa mid cad ayaa hadda aan itaalo oo aan isticmaalay kadibna waxaan soo darsay deciliter halfkiisa oo bur ma rabin inaan يعني bur kali u sameeyo waxaan kaloo ugu soo daray xitaa carafsayar carafsadan waxa waaye carafsooyinka lagu daro doorshooyinka ayaan wax yar ugu soo daray si uu caraf mooska marka lagu daro carafsada kaal iska arag wax kale ay noqonaysaa soo intaas ayaan soo dhexgeliyay maasha Allah tabaarakallah lagama sheekeyn karo soo mooska uma baahna inaad ku darto sokor waayo asaga sokor ka samaysan laakiin hadii adiga jeclaato ku darsan kartaa abaayo
waayo waxaan diidahay caruurta inaan u sameeyo ama wiilka yar inaan u sameeyo burka keligiis cad marmarka qaar wuu u sameeyaa laakiin hadda waxaan isdhahay u dhexgeli waayo ilmaha calooshooda way yara adkaanaysaa umana fiicna burka cad keligiis inkastoo qamadiga xitaa oo hadda ahay qamadi cad isku daya insha allah waxyaabaha fruitka qamadiga rootiga madow aniga rooti madow waxaa ahayn gurigeyga lagama helo rooti madow waxaa ahayn ma siiyo cunugeyga waayo rootiga madow layskuma caateeyo bes waayo ilmahana u fiican yahay caloosha waxay ka helaan fiibar badan ayaa ku jiro ay ka helaan rootiga cad caloosha u fadhiisanaa soo wax fiican maaha insha allah caruurta in la baro inay rooti kasta cuni karaan way fiican tahay laakiin rootiga madow aad iyo aad ayuu u fiican yahay soo sida arkaysaa meeshan hadda waxaan u dubayaa malawixiisii yaraay ama bankeyga waxyar oo litarka ayaa xafxaaf kasoo qaatay waxaan soo marsaday birtaawada waxyar oo subag ayaan soo marsaday kaaliska arag inaba caadi maaha saas ayaan usoo gadgadinayaa gaduudka lagama sheekeyn kara carafta ayaa ka daran maasha allah tabaaraka allah soo cunugaagu wuxuu jecelyahay uu ku cunayo ama markaas oo xiiseynayo waa ugu tuuraysaa subax waxaan u kariyaa mashaari oo kaaliska arag oo lagu daray qorfe يعني عنقو حيسينا مروحة أسميسا شنطة مالين يعني حنانة ميلها لقينا وكلاته روتكيس اسمرس كسي مربوح إن شاء الله سو عنقاقنا وكو برنا عنتوني كالدوان سو مركو إنو سو دمتي لابد دينا كالس كأرك إيك سو قدودتي لقما شاكين كر قروح ذا كاقا درنبا وحاسمي دونا إن شاء الله intii hartay ayaan rabaa hadda inaan soo dhameystiro oo aan kusoo shubo birtaawada waayo wax badan maana qasin waayo asaga bis ayaan ugu talagalay quraacdan inuu iskaga noqdo barqadii oo kaleeto hadhow markii xanaanada ah ka keeno karo duhurkii oo kaleeto haddii aysan markaas oo kale qado diyaar ku ahayn oo kaleeto cunug waa siisan kartaa haddii kaleetana waa kaasaa soo maasha allah tabaaraka allah birtaawadini ayaan kusoo shuban hadeertaan labadii xabo oo kaleeto ugu dambeysay kaaliska arag lagama sheekeyn karo quraac fudud oo kaaliska arag waaye inkastoo aanan jeclayn aniga siraabka inaan ugu daro laakiin asagaa jecel marmarka qaar isbuucii hal mar ama laba mar waxba kaba dhibayso saan jeclahay inkastoo ilkaha uusan u fiicnayn caafimaadkooda uusan u fiicnayn malab haddii aad haysto ugu bedel kartaa insha allah soo siraab ayaan kusoo daray kaaliska arag siraabka waxaa waaye aad iyo aad ayuu u macyahay laakiin maxaa sameyn karaa cunug wuxuu wax kuugu cunaya markaas inaa waxyar ah ka siiso way habboontaa marka qaarkood laakiin isbuucii laba mar ha uga badinin waayo haddii aad ugu badiso waxay noqonaysaa too much ayay noqonaysaa insha allah soo moos ayaan usoo jaray geeska ayaan uga soo saaray mididiisa yar iyo fargeetadiisana gees ayaan uga soo saaray labadii xabo kaleeto ayaan haddana usoo noqday kaaliska arag ay kusoo baxeen bibi yar haddii aad haysato waa u dhiibi kartaa gacanta ka saar saas u kala jar dhexdiisa lagama sheekeyn karo asaga wuxuu noqday fulufik bismillaahi maasha allah tabaaraka allah intaa haysan ilaaha siiyo intaa haystana ilaaha u siyaadiyo walaalahay qaaliga aan jeclahay markii cunuga xanaanada aan geystay waa soo fakaday hooyo madaasho hooyo waa shaqo hooyo kheyr ilaaha siiyo wax badan ayay guriga ka haysaa maasha allah tabaaraka allah soo waxaan soo galay haddana fadhigii xali kaaliska arag maxaa is leedahay meeshaan saastaa fadhiga shalgaaba aan hagaajiyo tirtiray oo ka dhigay dhalo laakiin waxaa meel kasta maraya tuuran habeenkii oo kaleeta caruurta markay fadhiga wada joogtay waayo fadhiga waa meesha ugu badan ee waqtiga lagu qaato alalaabiyadii meel kastay daadsan tahay marigeeda inta taalo bustiya habeenka marka la dhaxmoonayo waxaa xilliga winterka oo kaleeto waa la iska qarqaraa bustayaasha lasoo qaadanaa wax kasta meeshaan ay yaalaan caagideeda weynteena biyaha waa kaasaa biyaha laisku ogaado gabdho biyo badan hala cabo insha allah jirkiina sida u qurux badnaado dhaldhalaal u heshiiyeen يعني كرخلال كسائد كبر إنه كبر يعني مقارك هدي وبيه الواي مقارك إنه يسكو دجاج سكر لهم حنقنا دق عمله يكانوا قنا سجر كاج بيه بدن أساسته مقار مور مقار كاج أو إفتيم أيون قنا إن شاء الله سو ماشان بستي أيان لا لعبة يا وري إنه كدالني شق عشرة فلش هذا عيب ما فهمتين سو هوي حش وحوا هوي والشق مركزته هاي اللي سو يابين ميل كوسكوسن هدا أركتين ولا ليالو سونا علوش يوجو حرام فهمتين أنتن علوش اللي دجالم هويا gabadhiina yareed xadka ay kasii bixisa waxaa waaye isqabad ay ku jirtaa insha allah ilaahay ila garab galo soo meeshaan waxaan soo tutusinaa barkimankii ayaan soo tutusinaa kaaliska arag waxaa waaye aniga inta waxay iga shidantaa barkimankaas bulbuluuga ayaan bas ka saartaba ya wax kaleeto ma siira raadinin waayo gabadheeda yarta alxamdulilah awlaad ilaah noo barakeeyo gabadheeda yarta istaag
socod ay had isku dayaysaa wixii miis ahay qaad oo alaabtii oo isdhahay alla leeyahay way ka daqraysaa gabadho kale ama dhaawac ay ka gaarsiinay wixii dhima waa wada qaaday miisaskii waan xareeyay qol ayaan iska geliyay waxaa waaye hadartaan firaaq oo kursiga kale oo gees ka yaal asagna meel kale gees ayaan dhigay waxaan dhahay free ya ciriiri dhanba inuu dareemin cunuga isku day insha Allah caruurta ha laga gurbiyo intay yani waqtigooda ay ku jiraan soo aniga sidaas ayaan sameeyaa wiilkayga yarkana markuu saa oo yani gurguri bashka istaag oo ahaa asana soo kale saas ayaan sameeyay wixii alaab cunuga markaas u fududaanaysaa inuu ciyo socdo ama yani uusan markasta jugka soo gaarin walaa jugta aad ay xanuun badan tahay marar badan markay dhacdo halkaas ayaa ku xanuunayso soo shaygan alaab waa la helaa laakiin awlaad lama helo soo wax kasto iska qaad insha Allah oo dhaawac u geysanaya caruurtaada soo ma sha Allah tabarakallah qolkeeni markaas saan kasoo dhiganay TV-ga bankiga yani meesha TV-ga saaray miiska aan soo tirtiray kaaliska arag waxyaabay gacanta lagu soo saaray quraan al-baqara shitay alxamdulillah subax al-baqara ayaa fiican la shito qolka da intay nala soo garto waxaan ka codsanayaa like share and comment